madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wadi balaaran oo hogaaminayo ayaa waxay maanta gaareen magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen madaxweynaha maamulka Jubbaland iyo mas'uuliyiin kale warkaas ayaa wax magaalada Kismaayo inooga soo diray wariyaheena madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo gaaray magaalada tan Kismaayo waxaana garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ku soo dhaweeyay mas'uuliyiinta ugu sarsareysan maamulka Jubbaland ururada bulshada qaybaheeda kala duwan iyo dadweyne aad u tiro badan salaan iyo soo dhaweyn kadib waxa ugu horeyn goobta ka hadlay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale sheegay in uu xariga ka jiri doono shirka madasha wada tashiga qaran ee aayaha looga tashan doono dalka Soomaaliya magaalada Kismaayo وانتشرت الرئيس أيام الزمالك بالشأن الجنة والتوكل الأرض والتنظيم الوطني شكل وانتشر قرن مسجد القديم ما أنت نجيب جينا ترى رسمي أمم الصومالية صباح وانا واحد وحرال الاستقياء الصومالي وكان غالي كون الطاي عسي هواي واحد تراجعني سؤال بدري ولا مهر معروف وكا دولة الجبلان تذكر الجبلان وأوجا ما هاد عيني سوبوين تجرين تهيئة برتقل الشركة المادة على كرسي صابر عبد القادر ورسم صابر هونستي تلفزيون كعالمي الصومالي كيبل مقالة Kismaayo